galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa isniin bisha May ee sanadka 2020 waa 11 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada magaalooyinka qarya bogeena voasomali.com. idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen bare iyo jamaal axmed cusmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah roobab xoogan oo xalay ka da-ay magaalada muqdisho iyo dad rayid ah oo ku dhintay kadib markii uu guri kusoo dumay. marka hore ilaahay bay mahad u sugantay waayo ayagu kula koobi kara saaka maahaba soomaad garan dani waad halkaana dhigtay waqtigana imika waabay u khayr badantay way u bela badantay odhan maayo way u khayr badantay rabadaanna way tahay waxa weeyi waa dhag waxa soo kordhay raashin la'aan baa soo kordhay suuli ma lihin ma garanaysaa barkad ma lihiin oo nooma qodna oo kama dhaansanno. waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda dad barakacyaal ah oo ku dhibaataysan degmada Salaxley ee Somaliland. waxaan sidoo kale idiin haynaa xubinta ilayska v o a oo ku saabsan faa'iidada jimicsiga xilligan ay dadku guryahooda ku sugan yihiin si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19. barnaamijkan wuxuu ugu dhashay aniga muddo badan baan ordayay oo training sameynayay maadaama nin sport saxa umaanan joojin anoo shaqaysanaya timeka fasaxaan helo ama maalintii 30 minutes 40 minutes waxaan sameeyaa training mar jiim baan tagaa mar waan ordaa. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixaafid caawil ismaaciil. xanuunka covid-19 ayaa gaadhay aqalka cad iyada oo maamulka Donald Trumpna uu dadaal ugu jiro sidii loo furi lahaa qaybo ka mid a dhaqaalaha dalka. tirada ugu badan ayaa xanuunku waxa uu ku dhacay una dhintay dalkan Maraykanka. 2 xubnood oo ka mid a shaqaalaha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa laga helay xanuunkan. madaxweyne Donald Trump ayaana Khamiistii xaqiijiyay in Katie Miller oo ah xogayaha warbaahinta madaxweyne ku-xigeenka iyo Stephen Miller oo gacanyaro waa xaaskiisa labadaba jimcihii lagu xaqiijiyay inay xanuunka qaadeen. afhayeen u hadlay madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in isaga xanuunka laga waayay maantana uu shaqada ku soo noqday. waxaanu intaasi raaciyey inuu madaxweyne ku-xigeenku raaci doono talada shaqaalaha caafimaadka aqalka cad. xeer-ilaaliyaha guud ee gobolka Georgia ayaa ka codsaday waaxda cadaaladda inay baaritaan ku sameeyaan dil loo geystay nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo Ahmaud Arbery. ninkan oo ahaa nin dhalinyaro ah oo madow ayaa 2 nin oo cadaan ah ku dileen magaalo xeebeedka Brunswick 23 bishii Febraayo isagoo oo meel ordaya. dowladda ayaa bishan u xidhay 2 nin. toddobaadkan aynu soo dhaafnay ayaa waxa dad badan ka calaysiyay fiideo muujinaya muuqaalka nin la dilayo. xeer-ilaaliyaha ayaa sheegay in qoyska iyo jaaliyaduba u baahan yihiin jawaabo degdeg ah. xeer-ilaaliye Chris Carr ayaa qoraal uu soo saaray waxa kale oo uu ku sheegay in dib loo eegayo qaabka ay dowladdu ula macaamishay dilka Ahmed Arbery. waxaanu intaasi raaciyay inay la shaqayn doonaan hay-adaha dowliga ah. saraakiisha dowladda ayaa sheegtay inay sidoo kale baaritaan ku sameynayaan hanjabaada loo geystay dad ka dibabaxay ee dilka wiilkaasi. ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa sheegay in aan la joojinaynin bandoogii saarneyd Britain. waxaanu ugu baaqay dadka inay feejignaadaan inta ay dowladdiisu ka shaqaynayso tallaabooyinka loo baahan yahay in loo qaado sidii loo khafiifin lahaa isdhexgalka bulshada iyo ganacsiga. fariintan ayuu ra-iisul wasaaruhu u jeediyey dadka ku nool mandaqada ku nool England. dowladaha mandaqadaha Scotland, Wales iyo waqooyiga Ireland ayaa sheegay inay sii wadayaan siyaasadda joogista guryaha oo aanay khafiifinaynin. ra-iisul wasaare Johnson oo ka hadlayay muuqbaahiyayaasha Britain ayaa sheegay in si yar uu u khafiifin doono bandooga iyadoo ay dadku guryahooda agtooda ku jimicsan karaan. dadka qaarkiina loo ogolaan doono inay xafiisyada u shaqo tagaan. sarkaal sare oo ka tirsan ururka dhaqdhaqaaqa Baashtuuka Pakistan ee taxafuus iyo xubin ka mid ah golaha dowladda dalka Pakistan ayaa ku eedeeyay koox Maleeshiya ah oo ay dowladdu taageerto weerarkii toddobaadkii aynu soo dhaafnay lagu qaaday hogaamiyaha kooxdaasi ee koonfurta gobolka Waziristan. waxa uu sheegay inay cad ay dowladdu ku lahayd
iyadoo buu yidhi ay jireen shilal noocan oo kale ah oo hore u dhacay dowladduna ay ka aamustay. bashtuun waa qoomiyadda ugu weyn dalka afghanistan, laakiin bakistan waa ay ku yar yihiin. inta badanna waxa ay ka cawdaan in la cadaadiyo. qaylo weyn ayaa timi kadib markii wiil 27 jir ah oo bashtuu ah tukaalana ah lagu dilay magaalada Karachi ee dalka Bakistan, iyadoo lagu eedeeyay dowladdu inay indhaha ka qarsatay inay cadaaladda hor keento ciddii ka dambeysay wiilkaasi. aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo wararkii caalamkeena la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA. haddii aynu gudagalno qodobada kale idaacadda galabta aan idinkugu hayno. roobab mahigaan oo xalay ka daaya magaalada muqdisho ayay ku dhinteen dad rayda oo isku qoys ah oo deganaa degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. goobtaasi waxaa tegay wariyaha VOA xasan kaafi qoyste, warbixintan ayuuna noo soo diray. 5 ruux oo isku qoys ayaa ku geeriyooday halka aabihii reerkaasina ay waxyeello culus ka soo gaartay kadib markii uu ku soo dumay dhismo qadiimi ah oo ku yaalay xaafadda Ceelqalow ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. dumista dhismahan qadiimiga ayaa waxaa sababay roobab xooggan oo habeenkii xalay ahaa saacado xiriira ka da'ayay magaalada Muqdisho, taasoo keentay inay halkaasi ku geeriyoodaan 5 carruur ah iyo ayeeyadood, sida ay ku waramayso Nasra Cismaan Aadan oo qoyskaasi ka tirsan. waxaa meeshaan hala ku dhacday dhibaato aad iyo aad u foolxun. awalkii hore gurigan waa iska degnayna, nafteyna unbaa ku sabsabeyna. xala roobaa imaaday, biyihii meeshaan waa ujeedaa difaacan galnay, ilbaabkii biyihiaa iska celinayna. anagiioo ilmihii kiba mar bixinayna al-ultima derbigii dhanaaba nagu soo go-ayba juududududu kuudududu. islaan waayeel oo 60 jir ah iyo 4 cunug, mid 13 jir ah wiil ah, midna wiil waay 5 jir ah, midna gabar waay 8 jir, midna gabar waay 4 jir. 5taas ruuxa saaka meeshaan nafsadooda lagu waayay. xanta wax la dhoon hortaaba ha sheegin, wixii alaab ahay, wixii joodaro ahay, wixii dhar ahay. dadka deriskiyaa noo soo gurmida, dharkan hadda ii xiran deriskaale iigu keenay. wax noo badbaadi oo ilaahay abuuray ma jirto. 5 qof ee dhimatay maxaad isku tihiin idinka? waxaan isku nahay ehelada, hal qoysaan nahay, ma fahanti. reer dumaashileen kala nahay. wiil anaa dhali, wiil dumaashigeeyaa laba iyaa gabar iyo wiil dumaashigeeyaa dhali, haddana gabar kale dumaashigeeyaa dhali. qofta dhimatina ilmaha oo dhinteen aabiyaalkooda habartooda way ayeeyada ilmaha way. marka waa qof waayeela iyo 4 carruur iyo 4 carruur ah meeshaan ku nafwaysi. ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo. guriga meeqa sanaa deganaydeen? guriga ari waxaan deganahay 6 sano. 6 sana iska deganahay. waa ujeedaa guri maanta dhibaatada uu ku kooban yahay sheegad ma rabo. waxaana nagu kalaftay dhibaatadan gurigan godka ee, waxaa nagu kalaftay lacag la-aan aageeda. kiradii ma iska bixi karno, hooy kale oo ku hooyna ma haysano. sidoo kale cabdulaahi maxamed oo ka mida odayaasha deegaanka Ceelqalow ee degmada Wadajir, islamarkaana qayb ka ahaa dadkii u soo gurmaday qoyskan dhibaatadu soo gaartay, ayaa VOA uga waramay qaabka ay wax u dhaceen. xalay masiibo xoog badana ka dhacdo ilaahay amarkiisa. reer dhan oo isku qoysa 4 qofood iyo ayeeyadooda ku dhimatay. odayga aabahood ahayna isagana dhaawac isbitaalka loola qaaday. ciddii ayagoo meesha ku jiraan daad xooggana hal mar soo galay. daadkii markuu soo galay derbigii ku soo wada dumay. xaafaddii gurmada la isku daya, laakiin ilaahay awooddiisa waxba waa laga qabo waaye. dadkaas hanti iyo nafba waa ku waayeen meeshaas. xoolahoodii ma ka qaadanin, wax maanta ay ku seexdaan iyo wax ay cunaan iyo galaas biyo ay ku cabaan ay haystaan ma jirto. waa taas bannaanka ay wada fadhiyaan. masiibadaasaa ka dhacda maanta xaafadda. wax u soo gurmaday ma jiraan? wallaahi hadda un kolley maamulkii degmada Wadajira iyo mid khayr allah siiya asigaa gurmadkii koowaad bilaabay oo yimid oo wuxuu ahay meeshaan kow ku soo baxay. meedkiina waa la qaaday oo in la asturo oo ka shaqeeya, ma garata asigana. intaasaa gurmadka ugu horreeyay oo na soo gaaray, iyo xaafaddii isku duuban iyadana gurmad ku jirto. laakiin waxaan kaloo codsanaynaa muslimiinta intii muxsin oo wax baxsanayso, ama ganacsata ha noqoto ama hay-ad ha noqoto, dadkaas masaakiinta oo maanta dhibban oo hantidooda iyo naftoodaba ku waaya in la soo gurmado. caawa meelay ku hoydaan ma haystaan, waxay cunaana ma haystaan. xaaladooda meel adagay taagan tahay. mar walbana waa soo naqnaqatay, biyahana eber ka dhiga dadkan. roobabkan daadadka watay ee xalay ka da'ay magaalada Muqdisho ayaa gooyey meelo badan oo ka mida wadooyinkii ugu muhiimsanaa caasimadda,
waxaana jirta in gaadiidku ay isticmaali waayeen waddooyinka burburka ku yimid awgood. marka laga soo tago magaalada muqdisho, roobabku waxa ay waxyeello gaarsiiyeen qoysaska barakacayaasha ee degan duleedka magaalada muqdisho, kuwaasoo la sheegayo inay burburiyeen in ka badan 70 ka tirsan aqalada cooshadaha ay ku hoydaan dadkaasi tabaalaysan. xasan kaafi qoyste, VOA, Muqdisho. waxaa soconaya dadaallo xoogan oo lagu doonayo in lagu yareeyo khatarta ka iman karta fatahaada webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne kadib markii uu webigu jabsaday dhowr meelood oo ku yaala duleedka magaalada. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ka wareystay wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane. maxamed bashiir waa mahadsan tahay. wararka ugu dambeeya magaalada Beledweyne iyo deegaanada ku hareereysan webiga ayaa waxa uu sameeyey in uu soo jabsaday ama meelihii loogu talagalay in lagu hakiyo ayuu soo jabsaday. meel yidhaahda deegaanka Qooqane oo duleedka waqooyi magaalada ku taalla buur loo dhigay ayuu soo jabsaday roobab da-ay habeen hore oo sabab u ahaa. sidoo kale helekeliyo kanaal laga sameeyey ama biyo xireen ay ka diyaariyeen guddigii gurmadka magaalada Beledweyne 2 meel ayuu ka soo jabsaday. meel kale oo loogu talagalay in lagu hakiyo oo magaalada iyo duleedka magaalada meel u dhaxaysa sidoo kale waa uu soo jabsaday. mardhow oo aan la hadlay gudoomiyaha guddiga gurmadka Xaaji Asmaan Dhagaxo wuxuu sheegay in weli ay dadaal wadaan, xaloo dhan ay shaqaynayeen, laakiin biyaha yimid ay ahayn biyo xoog badan, laakiin la filayo in naqo uu daba taagan yahay oo bannaan ilaa 2 habeen culeysku uu haynayo. xaafadaha qaar dadku waa ay barakaceen, xaafado kale oo la degan yahay waa jira, inkastoo biyaha magaalada aynan kulli wada gelin oo meelo ka mid ah xaafadaha godka ay galeen, haddana weli guddigu waxay ku adkaysanayaan in dadaal ay wadaan, rajana ay ka qabaan inay ku guulaystaan in biyaha sidii ay magaalada mar walba dhibaato u gaarsii jireen si ka yar inay noqoto oo wax badan ay ka qabtaan. ilaa hadda inta la ogyahay wax khasaaro ah oo ka dhashay fatahaadan cusub? ilaa iyo hadda wax dhimasho ah ama burbur hantideed ilaa iyo hadda ma jirto. ilaa 15 maalmood ugu dambeeyey biyaha magaalada banaankeeda ayay guddiga gurmadka ku hortaagnaayeen oo ay ka celinayeen in magaalada soo galaan. dadku ay ka warqabeen, wax kadisa ma ahayn. intii badneed dadkii alaabahooda kuwa shakiga ka qaba meelahooda inay soo galayaan waa ay kala baxeen. dadka kalena weli waxay ku talagaleen in magaalada meelaha taagaga ah oo aan biyuhu gaari karin inay sii degaan. ilaa iyo hadda wax khasaaro nafeed iyo mid hantideed oo la ogyahay oo biyuhu ay geysteen ma jirto. maxamed bashiir. xuseenow, ilaa hadda maxaa dadaalla ah oo socda hadday noqon lahayd dowladda federaalka ama maamulka Hirshabeelle ama hay-adaha samafalkaba? dadaalka hadda ugu weyn waxaa wada maamulka gobolka, haba ugu badnaada guddigii gurmadka Xaaji Asmaan Dhagaxo uu madaxda u ahaa. maamulka gobolka waxay dadaal ku sameeyeen ilaalinta meelaha ay howlaha ay ka socdaan iyo fududeynta sidii hawsha loo qaban lahaa. shalay waxaa soo gaaray magaalada Beledweyne madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. bartiis Twitterka waxa uu ku qoray in lacag ilaa 1 milyan gaaraysa ay soo gaartay. 600 oo ka mid ah dowladda Djibouti ay soo dirtay, 500 oo dowladda Soomaaliya iyo 42,000 oo kale oo iyadana ay soo dirtay qaybo ka mid ah dowladda federaalka. dadaal badan waa uu socdaa. roobaba waxay ka da'ayaan dhulka taaga ah ee Ethiopia, taasoo mar walba culayska sii kordhin karta. laakiin marka dhinac laga fiiriyo, guddiga gurmadka dadaal badan ayay sameeyeen oo biyaha haddii aanan laga hortegi lahayn iyo waxa ay sameeyeen saacadahan ka horba magaaladu waxay noqon lahayd kuwa ay biyuhu ay meel walba gaaraan. dhinaca kale, guddiga gurmadka Beledweyne ayaa 7 bishan VOA u sheegay in lacag gaaraysa 600 oo kun oo doolarka Mareykanka ay dowladda Djibouti ugu deeqday dadka ay fatahaaduhu saameeyeen aanay iyagu soo gaarin. dowladda Djibouti ayaa xaqiijisay in lacagtaasi ay 7 bilood ka hor ku wareejisay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Soomaaliya. danjiraha jamhuuriyadda Djibouti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan Balelo oo waraysi siiyey idaacadda VOA ayaa sheegay in iyagu aanay faraha la gelinin maamulka gudaha ee Soomaaliya iyo sidii kaalmadaasi loo maareeyay. safiirku wuxuu u warramay wariyaha VOA Jacfar Kukaay. walaal Jacfar, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waxaan ku hambalyaynayaa adiga iyo dhegeystayaasha idaacadda VOA iyo ummadda Soomaaliyeedba horta bisha Ramadaan barakadeeda. su-aasha
adi weydiisay intaanan ka jawaabinna waxaan ummadda soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogtaba ka tacsiyeynayaa dhibaatada ku timiday ee ay keentay raxmadda ilaahay ee maaragtaan inoo da'day inta ku dhimatay allah u naxariisto, inta ku dhibaatootana allah ka kaalmeeyo. lacagta adi weydiisay dabcan jamhuuriyadda jabuuti ma ahayn keliya lacag madaxweyne ismaaciil cumar geele oo mar walbo ay dhibaata timaadaba maaragtaan dadka uga soo horeeya. waa kii kala hore soo diray dhowr diyaaradood oo qalab gurmad ah oo qalab caafimaad iyo maaragtaan cuntada nafaqada degdega ah ay ka mid ahaayeen, iyo jeeg lacag oo $600,000 ah. waa tii loo soo diray markii ay fatahaaduhu ka dhaceen beledweyne 2019. kolkaa dee lacagtaasi waxay qayb ka ahayd gurmadkaasi loo fidinayay dadkii ku dhibaatooday fatahaadihii webiyada, oo dabcan markaana may ahayn beledweyne oo keliya, laakiin 2 dowlad goboleed baa ugu darnaa saan xasuusto oo hirshabeelle iyo maxaan ku idhahdaa koonfur galbeed. intaba dhibaatooyin ay ka dhaceen ayay ahayd. lacagtaas xilligii loogu talagalay dabcan halkii loogu talagalay maanay gaarin, oo waatan uu madaxweynaha hirshabeelle shalay oo bishu ay 10 ahayd uu sheegayo in ay soo gaartay lacagtaas. muddo 7 bilood ku dhow bay lacagtaa maqnayd oo aanay gaarin halkii loogu talagalay. adinku ma ka warhayseen lacagtaas inaanay gaarin meeshii aad u qorshayseen? annagu wixii anu qorshaha iyo arrimaha maaragtaan farsamada ah waxaa iskale dowladda soomaaliyeed, ama ha noqoto dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada ha noqoto. laakiin shacabka reer jabuuti wixii ay ku soo gurmadeen ay walaalahooga ugu soo gurmadeen waxaa waajib ka saaran yahay inay u dhiibaan maaragtaan dowladdii dhexe ee federaalka ahayd. marka guddigii ay dowladda soomaaliya u magacowday masiibooyinka qaran oo uu hogaaminayo wasiirkii wasaaradda maaragtaan masiibooyinka iyo gargaarka iyo masiibooyinka oo maaragtaan xamse uu hogaaminaya ayaan anagu gacanta kaga ridnay. dee waad garanaysaayo sida uu waajibku yahayna waa sidaas, oo annagu inaan u maamulno ma aha waajibka iyagu ee wixii gargaara inaan maaragtaan walaalaha iyo kalsooni weyn ayaan ku qabnaa inay maaragtaan shicibkooga ay wixii loogu dhiibo ay gaadhsiinayaan. waana dowlad runtii dee dhibaatooyin fara badan ay haystaan, oo dee fatahaadoo keliya hata maahine amnigii, dhismihii dowladda, la dagaalankii maaragtaan argagixisada. kolkaa dee haddii aanay weli gaadhin malaha dee iyaga ayaa maaragtaan iyaga ugu maaragtaan dee fara dhuudhuuban oo way u wadaan. nina jirhkiisa biyo kama dhowro. marka waan ku kalsoonahay inay meeshii ugu baahi badnayd ay kolley gaadhsiiyeen. waayahay dabcan waan ka warhaynaa magaalada beledweyne si aada baad uga warhaysaan, oo ciidamo jamhuuriyadda jabuuti ka socdabaa halkaa jooga. marka waxaan u fahmay in aad la socoteen in lacagtaas aanay gaarin dadkii aad ugu tala gasheen, laakiin aad ka gaabsanayseen in aad faragelisaan oo aad la xisaabtantaan dowladda federaalka. walaal anigu sida aan aaminsanahay waxa weeyaan ciidamada amisom jabuuti ee halkaa jooga ay shaqada ay hayaan iyo shaqada gurmadka ahee dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka samaynayso oo dalkeyga u samaynayso waa kala 2 hawlood. gargaarkaasi waxaan aaminsannahay annagana wuu naga soo tegey, ummadda soomaaliyeedna hoggaankeygii ayaanu u dhiibnay. annaga xaggeenna waajibkaasi inaan gudannay oo ummadda reer jabuuti ay gudatay. kuwa soo socdana uu xil naga saaran yahay oo walaalahaya aan mar walba maaragtaan u gurman doono haddii ilaahay yidhaahdo. ka maanta jooga iyo maaragtaan kuwii yimaadaba kuwii isku gurmadaa aan nahay. waxaanan rajaynaynaa maaragtaan masiibada maanta taagan ee cusubna in dowladda soomaaliyeed, ummadda soomaaliyeed ee shicibka, ganacsatada, culimada iyo cid walba ay gurmato, iyo hay-adaha caalamka iyo kuwa maaragtaan gobolkuba sida annagaba ay tahay inaan yeelno waa inaan u gurmanno ummadda Soomaaliyeed ilaa ay cagahayga isku taagayso. ma idinku abuuri kartaa wax niyad jaba lacag aad 7 bilood ka hor ku deeqdeen in aanay gaarin dadkii loogu talagalay,
oo 7 bilood kadib xalay ay gaarto ama ay ku dhacdo qasnada dowlad goboleedka Hirshabeelle sida madaxweyne Waaraba uu sheegay kadib markii guddigii gurmadka fatahaada beledweyne ay arintaa ka dhawaajiyeen oo bannaanka ay soo dhigeen in lacagtii Jabuuti ay ku deeqday aanay iyagu soo gaarin walaal wax annaga niyad jab ah hadda ma malaynayo in meesha su-aashaasi ay ku jirto dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeedba hawsha u taale iyo culayska haystaay wuu ka badan yahay lacag gurmada oo gargaar oo aan mar maaragtaan anagu siinay kuna kalsoonahay inay gacmihii aaminka ahayd ku jirto waxana saarani waxa weeye kolba hawsha taagan iyo dhibaatada hadda taagan sidii wax looga qaban lahaa ama wax loogala qaban lahaa walaalaha iyaga Soomaaliyeed taas ayaa ka muhiimsan inaa maaragtaane lagu eetamo wax maaragtaane gaf ka iman karo ilow ka iman karo laakiinse meeshiisii tegey oo maaragtaane gaaray sideed u aragtaa si kooban adigu iiga jawaabay sideed u aragtaa adigu shakhsiyan maadaama aad tahay mas-uulkii jamhuuriyadda Jabuuti Soomaaliya u qaabilsanaa sideed u aragtaa in lacagtaas aad ku deeqdeen 7 bilood kadib dib loo helo oo halkii aad ugu tala gasheen 7 bilood kadib la gaarsiiyo anigu su-aasha aad weydiinayso jawaabteeda ma hayo waxaan ku yidhi dowladda Jabuuti gargaarkii madaxweyne Ismaaciil Cumar iyo dowladda iyo shacabka Jabuuti ay soo direen wuu gaadhay walaalaha iyaga Soomaaliyeed 7 bilood ka hor ayaanan gaadhsiinay oo la naga guddoomay haddaad u baahan tihiin inaad arshiifka sii maaragtaan raacdanna waad helaysaan jeega nambarkiisii iyo saacaddii la naga guddoomay iyo ciddii naga guddoontay walaal haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA iyo maxamed colaad xasan kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da meelo badan oo dunida ah dadka waxaa lagu amray inay guryaha ku ekaadaan xanuunka covid-19 awgey haddana waxaa la ogolaa in qofku uu dibadda u bixi karo oo uu samayn karo jimicsi ama uu hawada soo qaadan karo si dhiiggiisu u helo oksijiin nadiifa taasoo ka qayb qaadan karta sida dhakhaatiirtu sheegeen kobaca awoodda jirka ee la tacaalidda xanuunka covid-19 jimicsiga iyo orodka waxa ay yareeyaan cadaadiska jirka iyo maskaxda waxaa looga hortagaa ama ay yareeyaan miisaanka qofka waxa ay xoojiyaan hanaanka difaaca jirka waxaana qofku uu ka helaa hurdo wanaagsan haddaba toddobaadyadii u dambeeyey waxaa baraha bulshada haystay muuqaalo fiidiyow oo muujinaya soomaali ku kala nool dunida dacaladeeda oo ka qayb qaadanaya mashruuc loogu magacdaray walaal ila orod muuqaaladan waxaa ka soo muuqday inta badan ciyaartooydii hore ee dalka soo maray macallimiintii isboortiga oo meelo badan oo dunida kala jooga waxaana markii dambe ku biiray dhallinyaro faris charles waa qabanqaabiyaha mashruucan ee magaalada toronto ee dalka canada waxa uu barnaamijka elayska uga warramay sida ololaha orodkan uuga socdo toronto iyo agaariheeda maasha allah waxaan ku bilaabnay annaga dhalinyaraan ku bilaabnay maadaama fikirka fiicnaa oo noogu yimid sweden oo halkeena injineer ismaaciil jamaica aan ka ambaqaadnay toronto waxaa toronto kasii ambaqaaday lejanadii ciyaartooydii barsamaadkii dhammaan dhalinyaradii wax harsan magaalada toronto ma laha waa la soo wada baxay waa la wada taageersan yahay annagoo yaraan bilaabnay oo 6 qofood aan ku bilaabnay maantana waxaan maraynaa ilaa 150 qof inaan ku cararno oo meel walba laga wada cararo toronto iyo nawaaxigeeda waa magaalo weyn coladow raggii telefoona la wada leeyahay waa la wada xiriiraa waa la isballansadaa meelaha lagu wada ballamaa qaarkeed naga soo gaari waayna meeshoodii ku cararaan waa iska warqabnaa alxamdulilah walaal ilo orod worldwide way dhaqaaqday waxaan odhan lahaa wax dhaama lawaa lagu soo biiro shakhsiyaadka ka soo muuqday fiidiyodii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa cabdikariin cabdille shide shakhsiyaadkii ka soo muuqday fiidiyodii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa cabdikariin cabdulle shiidle oo lambarka 11aad uga ciyaari jiray kooxdii fiyaad ama wegad ee soomaaliya waxaan kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada london waxa uu iga warramay waxa ku dhiirageliyey ka qayb qaadashada orodkan hadduu coronaviruska horta waxa weeye xanuun horta ilaahay hanaga dulqaado
waa xanuun adduunka o dhan global adduunka o dhan yimid marka waxa weeye markuu soo baxay xanuunkaas ayaa waxaa noo bilaabay horta ninkan ismaaciil jamaica oo ciyaartooy ila ahaan jira ciyaartooyda barasamaadka marka waxaa la yidhi xanuunkan mar alla markuu soo banaan baxay uu yurub soo galay orodkaana bilowday waxaa la yidhi xabadka ayuu fariistaa xabadkuna ku dhigayaa qabow barafuu ka dhigaya xabadka safka sanbadaha ayuu fariisanayaa marka waxaa u roonaa la yidhi sportiga in training la sameeyo exercise more exercise intuusan ku soo gelin more exercise kaagana hadduu fiican yahay waxa weeye waa ka digtoonaanaysaa 90% inuu sanbadaha kaa soo aado dadka marka sportiga intooda badan oo caafimaadka qabo aan cudurro kala qabin waxa weeye waa ka wada badbaadeen intooda badan coronaviruska marka xogogaalkaasaan helnay walaal cabdikariin ayaa faahfaahinaya qaabka ay u wada ordaan xilligan coronavirus awgii dadka lagu amray inay kala fogaadaan marka dhalinyaradu meelo kala duwanay ku ordaan anaga marka waxaan nahay dhinacaan westigaan nahay south west london marka waxaan inta badan ku ordnaa buurahan hiliska northhall ayaan isugu tagnaa marka layskuma soo dhawaado distanceaan sameynaa social distance waa kala fogaanaa marka orodaa la sameeyaa marka oo trainina walaal ila orda oo maaragtay buurahaan ku wareeganaa socod dheeraan sameynaa rag inta badan anigaa hogaamiye u ah dhalinyaradan south west london marka orodka aniga igu soo daba xirtaan kabacdina jimicsi badanaan sameynaa anagoo kala fog marka waxaan ka warhelnay cudurkan coronaviruska waxa looga badbaadi karo inuu yahay exercise qofka uu sameeyo ragga keliya maaha ee fiidiyoyadan waxaa ka soo muuqday dumar ka qayb qaadanaya orodka iyo jimicsiga xamdi jaamac cali ayaa ka mid ah gabdho ku dhiirigelinayay dumarka inay guryaha ka soo baxaan oo ay ka qayb qaataan orodkan magaalada stockholm ee dalka sweden waxaa kaloo faa'iidadii ugu weyn oo kaleeto waxay tahay inaan dad badan la encourage gareysmeen oo guryaha ka soo baxeen waxaa kaloo ugu sii wanaagsan oo aan ka helnay barnaamijkan ayaa waxay tahay isbarashada iyo isku xirka bulshada soomaaliyeed walaaltinimada qaarad ka qaara dadkii inay isbarteen ee macnaha jacayl iyo caafimaadkooda le ay ka sheekaysanayaan iyo siday macnaha ay u kubcin lahayeen caafimaadkooda iyo xamdi ayaa ka warramaysa xamaasad iyo baritan uu orodkan ka dhex dhaliyey sida ay sheegtay qaar ka mid a dumarka soomaaliyeed ee ku nool magaalada stockholm gabdho badan waxa waaye 80% gabdhihii gurigaha joogay way soo wada baxeen kulli gabdhihii dhan waxay bilaabeen socod waxay ku xisaabtamayaan kilomitir inta kasoo kilomitir baan socday anigana intaasoo kilomitir way isballansanayaan aad iyo aad wallaahi ayadoon ahayn vayo warankeeda annaga hadda gabdhihii magaaladeena stockholm gabdhihii dhan waxay bilaabeen socod iyo kilomitir inay xisaabtamaan maalintii intaasoo kilomitir way isugu faanayaan kilomitirka encouragement heblaayaba way samaysay adigana waad samayn kartaa marka mid walbaba waxay samaysaa inay soo baxdo marka caafimaad badanaa laga helay iyo farxad wallaahi orodkan hadda ka bilowday meelo badan oo dalalka yurub iyo waqooyiga ameerika ah waxaa fikradiisa lahaa oo bilaabay injineer ismaaciil ceydiid oo loo yaqaano jamaica oo lambarka 11aad uga ciyaari jiray naadigii madbacadda qaranka ee soomaaliya injineerka ayaan kula xiriiray qadka taleefonka ee sweden waxaana ugu horreyn weydiiyey waxaa arrintan ku dhaliyey walaal marka hore aad baan kuu salaamaya adiga iyo dadka dhegeysan doona iyo adigaba iyo ilaacaddii v o eda aad baan idin salaamaya waan idiga mahad celinaya barnaamijkan wanaagsan aad soo qabanqaabiseen inaad ummadda u gudbisaan barnaamijkan wuxuu ugu dhashay aniga muddo badan baan ordayay oo training samaynayay maadaama nin sports aha umaanan joojin anoo shaqaysanaya timeka fasaxaan hela ama maalintii 30 minutes 40 minutes waxaan sameeyaa training mar jiim baan tagaa mar waan ordaa marka waxaan ku fikiray meelaha aan ku ordayo inta badan waxaan arki jiray dadka waddankan u dhashay iyo ajaanibta kale ayaa ku badan oo ila orda meelaha macnaha aan la kulmaa qof soomaaliya waa ugu yeedo waa arki waay hal nin oo saaxiib nahay ayaan isla cararaa isagana horsada ciyaari jiray oo number 7 ka ciyaari jiray saciid galgaduud la yidhahda saciid baa maalin dambe la tashan ku warniyo saciid qof soomaaliya intaasaan waddankan ku ordaya qof soomaaliya igama hor imaan weligii marka niyo waxaan go'aansadaan ku yidhi dreamingkaygina waa ahayd maalin soomaalida inaan kaxiyo inaan dadka walaalahay maadaama cudurka hadda uu bilaabmay oo guryaha ku jiraan inay ku sii dhiman karaan guryaha dhexdooda oo guryaha fogti bay leeyihin badanaa in macnaha aan u gargaaro oon u sheego in haddii la yidhi stay at home aysan ahayn sariirtaada hoos gal
ay tahay ka fogow haddaad cudur leedahay ama aad dareento macnaha cudurkan covidka ama aad dareento symptomiga wax in gurigaaga aad joogto haddaadan qabin inaad baxdo sida ummadoo kale aad soo cararto walow magaaladan adigoo waddankan aan deganaya aan close down wax lagu samayn oo shutdown laga dhigin oo shaqadii furan tahay iskuuladii furan yihiin ma garat waxaa jira walaalahaaga soomaaliyeed adduunyada dacladeeda ku nool u gargaaro la qaybso inay jimicsadaan si jirkooda u helo difaac cudur kasta qofku markuu ordayo training samaynayo jirkiisa difaac buu leeyahy wuu iska difaaci karaa cudur walba soo macnaha oo soo wajaha isla markaa soomaalida maadaama 30 sano haddana waxaa kusii fikiri waddankooda uu burbursaya dibadahana aysan ku haysan wanaag badan oo iyagii sarkaya oo dhibaato dhex taal Soomaaliya in macnaha ay ku walaaloobaan xataa isboorti markii ay jirkooda u caafimaad helo maskaxda caafimaado la helo macnaha dad bulsho badan oo Soomaaliya oo qurbaha ku nool caafimaad in iyaguna hadda waa laga soo cararay garow waa laga soo cararay waxa laga soo cararay Hargeysa Boorame waxa laga soo cararay Buucame Laascaanood Dhuusamareeb Muqdisho Janaale Qoryooley intaas waa laga soo cararay hadda injineer Jamaica iyo saaxiibadii ayaa adeegsaday baraha bulshada si ay mashruucan meelo badan u gaarsiiyaan social media nasaaciday anigana waa la xiriiray hadda waxa ordayay dadkii sportiga ahaan jiray waa soo wada kiciyay hadda bulshadii caadiga Soomaalida ahayd ayaa soo kacday because annaga Soomaalidu waxaan aaminsanahay in ninka kubadda ciyaara ama basketball ciyaara ama footballka ciyaara ama tennis ciyaara in sports kaliya u yaqaanaan laakiin qoladaas la yiraahdo professional laakiin ummadan kale sport waxa la qof kasto sport sameeyo taasa dadka ku wacyigeliyay wiigi hal maalin baa soo gali jiray wacyigelin oo live ah soo gali jiray waliga Facebook baa soo gali waxaan u soo galay inaan u hiiliyo ummadda Soomaaliya in la helo jir caafimaad qaba maskax caafimaad qabta iyo deegaan caafimaad qaba dhinaca Soomaaliya xitaa marka loo eego Jamaica ayaa aaminsan in orodkan uu sidoo kale qayb ka qaadan karo dib u heshiisiinta iyo nabadeynta Soomaaliya waayo buu yiri sportiga ayaa soo kordhin kara Soomaali badan oo jir iyo maskax bafayow talaata xitaa orodkan horta istaagi maayo wuu soconayaa ilaa aan ka helo qofka ugu dambeeya Soomaaliya oo jirkiisu caafimaad helo oo magaalo iyo miyiba laga cararo markaasaan u soo jeesan doonaa talaabta labaad ee qaadi doono ay noqon doonto Soomaaliya inay miis wada fariistaan because markay dadku maskaxdooda iyo jirkooda caafimaad qabo waxay noqonaysaa inay si wanaagsan u wada hadlaan oo wada fariistaan oo isweydiiyaan halka macnaha ku jira macnaha ummadda Soomaaliyeed ama qurbaha noqoto ama gudaha noqoto waddanka gudihiisa intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay mashruuc orod iyo jimicsi isugu jira oo Soomaali badan ka bilaabeen meelo badan oo dunida ah intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya Ramadaan Kariim aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad oo inala socodsiinayay barnaamijkii ilayska VOA gordhow waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil xanuunka covid-19 ayaa gaadhay aqalka cad ee maraykanka iyadoo maamulka donald trumpna ay dadaal ugu jiraan sidii loo furi lahaa qaybo ka mid a dhaqaalaha dalka tirada ugu badan ayuu xanuunka ku dhacay dalkan maraykanka waxaana ugu dhintay dadka ugu badan 2 xubnood oo ka mid ah shaqaalaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xaaskiisa ayaa labadaba jimcihii laga helay xanuunka xeerlaaliyaha guud ee gobolka Georgia ayaa ka codsaday waaxda cadaaladda inay baaritaan ku sameeyaan dil loo geystay nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo Mahmoud Arbery ninkan dhalinyarada ah oo madooba ayaa 2 nin oo cadaan ah ku dileen magaalo xebeedka Brunswick 23 bishii Febraayo isaga oo meel ordaya dowladda ayaana imika xidhay 2 nin ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa sheegay in aan la joojinaynin si buuxda bandooga saarnayd Britain waxaan ugu baaqay dadka inay feejignaadaan inta ay dowladdiisu ka shaqaynayso tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si loo khafiifiyo isdhexgalka bulshada fariintan ayuu ra-iisul wasaaruhu u jeediyey dadka ku nool mandaqada ku nool England dowladaha mandaqadaha Scotland Wales iyo waqooyiga Ireland ayaa sheegay inay iyagu sii wadayaan siyaasadda joogista guryaha oo aanay khafiifinaynin ra-iisul wasaare Johnson oo ka hadlay muuqbaahiyaasha Britain ayaa sheegay in ay in yar dabcin doonaan bandooga iyada oo uu yidhi iminka ay dadku guryahooda hortooda ku jimicsan karaan dadka qaarkiina loo ogolaan doono buu yidhi haddii laga maarmi waayo inay xafiisyada u shaqo tagaan
dalka bakistan sarkaal sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa baashtuuga bakistan ee taxafus iyo xubin ka tirsan golaha ururkaasi ayaa ku eedeeyey koox maleeshiya oo ay dowladdu taageerto weerarkii toddobaadkii aynu soo dhaafnay lagu qaaday hogaamiyaha kooxdaasi ee koonfurta gobolka wasiiristan. waxa uu sheegay inay cad tahay inay dowladdu luku lahayd iyada oo buu yidhi ay jireen shilal noocan oo kale ah oo hore u jiray, dowladuna ay ka aamustay. baashtuun waa qoomiyadda ugu weyn dalka afghanistan, laakiin bakistan tiradoodu waa yar tahay, inta badanna waxa ay ka cawdaan in lagu hayo cadaadis. markacyaasha ku dhaqan degmada Salaxley ee Somaliland ayaa VOA u sheegay in xaaladoodu ay aad u liidato, iyadoo ay uga sii dartay intii cudurka COVID-19 uu ka dilaacay dunida. wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle ayaa booqday Salaxley, warbixintan ayuuna noo soo diray. wakhtigan iminka la joogo dhulku waa cagaar, goob kastoo aad maraysana biyaha ayaa fadhiya. sanadkii ka horreeyey ee 2019 isagana waxa uu ahaa mid barwaaqa, iyada oo duruufaha nololeed ee dadka u muuqda ama sida guud laysaga warhaya ay cid kasta ula eeg tahay qof kasta iyo hayntii. dadka magaalooyinka jooga ayaa wakhtigan aan war badan ka haynin inay jiraan dad 3 sano ka hor caydhoobay oo weli bannaan fadhi ama degal fadhiya. degmada Salaxley waxa ay ku dhowaad 70 kilomitir koonfur kaga beegan tahay magaalada Hargeysa. waxaa duleedkeeda fadhiya dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 500 oo qoys. 3 sano ugu dambeeyey halkan ay barakacayaal ku ahaayeen. waa dad xoolo dhaqato ahaa oo noloshooda maamulan jiray, laakiin hadda waxa ay eegayaan gaadhigii soo muuqda. goor habeennimo cawaysnimo ah oo ay rabadaan tahay ayaan galay ama aan ku beegmay. dad badan oo dumar iyo carruur badan ayaa ku soo ururay baabuurkii aan watay. waxay u malaynayeen inay waxoogaa dhaqdhaqaaqa ama in uun raashin uu gaadhigu u sido ama wax loo qaybin doono. waan isu sheegay kadibna waxaan u warramay in codkooda ama farriintooda aan qaadi karo, laakiin aanan caawimo iyo taakulo kale aanan awoodin. waxaan markiiba helay qaar ka mida hooyooyinkan, waxaana sawir ay ka bixinayaan noloshooda iyo sida xaaladdu ay ku tahay. faadimo cabdilaahi cismaan. faadimo, goormaad adigu halkan soo tagtay? 3 sano ayaan deganaa. keentay waxa weeyaan abaar adag oo saameeya la yidhahdaa nagu dhacday. waxaanu ahayn dadkii xoolo dhaqatada ahaa, noolo ku nool. haddii aanu ahayn nooli markuu iska baxay, dee wixii kici kari waaye mooyaane wixii kacaya dee dhulkan u soo firxaday. haddii aanu u soo firxannay degmada sharafta leh iyo haddii aan la yidhaahdo maamulka ayaana gacan qabtay. halkanay dabada noo dhigeen. waanu iska naallay, oodahaanu soo garaacannay, foodadaha yagaanu ku dhisnay. dee dumarku markuu waa yeelana waa uu taahaa, kolkay umulaanna way taahaan. labadii oon midna kininaananu haysanna waanu haysanaa, waa noo degal fadhi. waa wakhti lagu jiro bisha barakaysan ee Rabadaan oo sideedaba culays dhaqaale iyo mid nololeedba u leh. waxaa dadkani ay isha ku hayaan in ciduuni ay u soo jawaabto oo ay taageero caafimaad, cunto, biyo iyo mid kasta oo ay u baahan yihiinba ka helaan. baan Axmed Ibrahim Abdi oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Salaxley. Khadar Maxamed Cakulle waxay ahaayeen dadkani markii ay xooluhu baxeen, dadka abaarihii la kala wada guuray, xoolihii ka jabeen ayay ku yimaadeen iyagoo baraka ah degmada Salaxley. kadib waxaan dejinay goobtan marka aynu taagannahay. waxaa degan 500 oo qoys ayaa iska fadhiya. 500 oo qoys waxay u fadhiyaan ilaahay u bay fadhiyaan halkaa, iyo kolba wixii aanu biyo yar iyo baad ilaahay dadkiisa uga helo ayay fadhiyaan. wax kale oo ay ku fadhiyaan ma jirto. xaaladoodu way aad iyo aad bay wallahi dadka u adag tahay. oday carab jagac ayaa ii sheegay in intii coronavirus uu soo baxay ay xaaladoodu sii murugtay oo ay sii adkaatay. markii aan cudurkan la arag adduunku wuu isu furaa, dhaqdhaqaaqa noo imanaya dee sidan wuu dhaamay. laakiin intii waxaani dhacay cidna maana arag, cid wax sideetana maanaan arag. sidaasay dadku uu wallaahi dhibaatadiisa lama koobi karo, hoos looma baadhi karaba, yacni faraheeda lagama sheekayn karaan wey. 500 ee qoys goobtan ay ku nool yihiin ma laha wax suuliya haba yaraatee. 3 habeen ka horna daadkii ugu badnaa ayaa ka rogmaday oo cirkii helay waxa uu soo rogay daad fara badan. taasi waa ay dareemi kartaa cid kastaaba duruufaha iyo caafimaad darro ee ka dhalan kara xilli weliba ay dhegtu taagan tahay oo dunida uu ku soo kordhay cudurka coronavirus oo si weyn lagugu leh dhinaca nadaafad darrada. intii aan ku jiray waraysiga, mid ka mid a hooyooyinka halkan jooga ayaa taagnaan kari weyday oo dhulka iska fadhiisatay duruufaha
caafimaad ee nafteeda la dariska darteed. waxaan weydiiyey magaceeda. faadumo guureed xuseen. waad fadhiisatay? waan taagnaan karin. ma taagnaan karaysa? ma taagnaan karin. Bishil farsataa. ood ku fadhidaa? waan ku fadhiyaa. waana taagnaan karin. waxa weeyaan xagga awoodda weeyaan. marka hore ilaahay bay mahad u sugantay. waayaha iyagu ku la koobi karo ilaahay baan horta baahan. waayaha iyagu ku la koobi karo saaka maahaba. soomaad garan. dani waad halkaana dhigtay. waktigana imika waabay u khayr badantay. way u bela badantay odhan maayo. way u khayr badantay. rabadaanna way tahay. waxa weeyi waa dhag waxaa soo kordhay raashin la'aan baa soo kordhay. suuli ma lihin ma garanaysaa. berked ma lihin oo nooma qodna oo kama dhaansanno. biyo la'aantu halkaa waabay naga haysaa. cabdi haybe cali waa guddoomiyaha barakacayaashan. dadkaa imika halkaa deganee 500 suuliye male, guryana male, biyana ma hayaan. wax alla waxay hayaan oo nololi oo bixii anytime bini'aadan ku noolaan jiray maba jirto. waannu iska fadhinaa. ilaahayna waxaan ugu mahadnaqanaa iyo dhibaatadaasoo dee ku sugan oo halkaa ilaahay iyo dawladdu ay dejiyeen iska fadhiyaano. guddoomiyaha degmada Salaxley Ismaaciil Yuusuf Xuseen ayaa sharaxaad ka bixiyey baahida ay dadkani qabaan. tawaalo fara badan iyo dhibaato haysta cid qaabishan ilaa ma jirto. waxaan rajaynayaa insha Allah billahi kariim in dadka muxsiniintii bisha Ramadaan ay wixii ay baxsanayaan meelaha ugu habboon bay kamid tahay insha Allah billahi kariim ku xisaabtamaan oo ay wax soo taraan. waxaana ugu daran dhinaca hoyga iyo maxaa dhacday arrintaas salitationka iyo waxbarashada iyo caafimaad gaaraya. waa ummad dhan oo waxay u baahan yihiin barnaamij dhan oo gaar ah oo sidii bini'aadamku u noolaayo dhanba doonaya deelo noolaadaan. meeshu kama foga magaalada Hargeysa oo 70 kilomitir waa ay ka yar tahay. laakiin waxaa laga yaabaa in xataa dadka Hargeysa ku nooli aanay warka haynin iska daadda dibadda ku noole. inkasta oo wakhtigan guud ahaanba duruufaha dadku ay iska adag yihiin, rabadaantanina ay kuwii hore kaga duwan tahay xaalad ahaan, xayiraadda iyo dunida saamaynta dhaqaale iyo ganacsi iyo isu socod ee uu cudurka coronavirus ku keenay. haddana marka aad dadkan aragto waxaad ogaanaysaa in ay jiraan kuwa aan cid ka jilicsani aanay jirin ama ay yar tahay. khadar maxamed cakulle VOA degmada Salaxley. haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere. kulanti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii badanaya kiisaska dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 gudaha dalka iyo kuwa u dhimanaya cudurka, iyadoo haatanna ay muuqato in xanuunka uu ku faafayo amaba uu ku baahayo magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya. inkastoo awaamiir horey ee dowladdu u soo saartay si looga hortago loona xakameeyo cudurka, hase ahaatee amarada la soo saaray uma dhaqangelin sidii loo baahnaa. haddaba yaa iska leh hirgelinta mas-uuliyadda arrintani? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qaybgelaya Brofesor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Brofesor Maxamed. cudurkan dilaaga ah COVID-19 waxaan u jeednaa inuu dalkeenana aad hadda farakulul ugu hayo. dadkuna wacyigelin badan ay dowladdu samaysay, xarumo badan oo lagu badbaadiyo dadka lagu kala badbaadiyo. dowladduna waxay samaysay wacyigelin badan. waxaad bulshadu inta badan hadda awaamiirtii dowladda way ku dhaqantay, way qaadatay. meelo yaryaroo waxaa jirta weli ma garanaysaa aan wacyigelintii si fiican inay u gaadhin. laakiinse wasaaradda caafimaadka dowladda federaalku waxay xoogga saaraysaa inay cid kasta oo qaadan weyda ay ka dhaadhiciso, ayna maxay ahayd ku daba taagnaato si loo qaato. bulshadana waxaan leenahay wasaaradda ha loo hogaansamo. cid kaloo maanta la raacayaa wasaaradda caafimaadka ha loo hogaansamo, awaamiirta ha la qaato. Nuur Sheekh Cusmaan. marka dowladdu way ku mahadsan tahay, horta awaamiir bay bixisay oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waqaafta arrimaha diinta iyo wasaaradda warfaafinta iyo gobolka Banaadir iyagaa u xilsaarnaa wacyigelinta. wacyigelintii marka waxaa la rabay inay joogteeyaan, inay soo kormeeraan, in ciidamada iyo la amro in awaamirtii la fuliyo. boosteejiyada hadda baabuurta laga raaco kale, suuqyada
iskuulladii oo kale wacyigelin toos ah oo ciidamada dowladda iyo taliyayaasha iyo kulli ay ka wada samaynayaan guddoomiyaashu waa loo baahnaa wey waxaa loo baahan yahay meeshan awood fulineed inay muuqato wey oo booliska la arko iyagoo jidboontiyadii jidadka jooga iyagoon dadkii dhibaataynaynin oo wacyigelin u samaynaya dadka wacyigelinta samaynaya oo garab u ah oo dhinac socda oo la socda oo dadka biniaadanku waa inaku garaadlay soomaalidu tiraahdaa wey qofku wuxuu indhihiisa u jeedo ayuu waxa weye ka cabsanaya wey marka dadkii indhahooda uma jeedaan ciidan fulinaya hawshii amar baa la soo saaray nin walba xafiiskiisa ku laabtay wey marka waxaa ka muhiimsan bulshadii in la dhex socdo awaamirtii la fuliyo la dhaqangeliyo dadkii wacyigelinta samaynayana hade garab loo noqdo lagu kormeero shaqadii wey sida nuur sheekh cusmaanba uu ku doodayo marba haddii dowladdu ay soo saartay amarka ma ahayd in dhaqangelintiisana ay ka shaqayso brofesor maxamed dowladdu hadafkeedu maaha inay hub qaadato oy shacabka maxay hayday xoog wax ku marsiiso maaha awaamiirta dowladdu waxay ku dadaalaysaa in talooyinka la qaato oo lama odhan karo way wada qaateen laakiin waxa weeye dalku dal baaba'ay oo ma garanaysaa dhaqaalihiisa hooseeye weeye dadku iyagoo awaamiirtii qaatay ayay dantu waxay kalifaysaa in marmar isku soo dhowaadaan iyagoo adeeganaya marka taasna waxa weye wasaaradda caafimaadka ku dhex jirta si dadku ay u kala fogaan lahaayeen ay isku ilaalin lahaayeen caafimaadkooda dagaal lagula jiraa in la ilaaliyo laakiinse dowladdu dagaal kulama jirto ciidamana ku soo daadin mayso oo maaha meel dagaal ka socdo laakiinse waxa weeye awaamiirtu waxa weeye waa barasweydiin wax la iska dhaadhiciyo ay dadku fahmaan sida aan hadda aragno waxa weeye dowladdu dadaal aad iyo aad u dheer ayay samaysay balse meesha waxa ka muuqda inay bulshadu gaab samaynayso oo ayna u dhagalnugleyn marka haddee bulshada laga rabaa inay u dhagalnuglaato dowladda oo maxay ahayday qaadato awaamiirta dowladda si loo wajaho maxay arrimaha caafimaadku ay halkaasi uga noqdaan kuwa najaxa oo ma garanaysaa ay dadku halkaasi uga soo baxaan awaamiirtii marka bulshooy waa inaad qaadataan awaamiirta dowladda waa inaad u dhaganugulaataan dowladda waa inaad awaamiirta dowladda ku shaqaysaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka si loo gaadho caafimaad taama ilaahay baana caafimaad haya bulshooy waa inaad u dhaganuglaataa dowladdu intii dadaalkeeda way qaadatay bulshooy xag kaalintiinnii waa inaad qaadataa nuur sheekh cusmaan waad dhegaysanaysaa brofesor maxamed waxa uu ku doodayaa in dowladdu dadaashay wacyigelin iyo howlo badan ay socdaan hase yeeshee bulshadu aanay u dhiganugleyn talooyinka caafimaadka iyo baraarujinta cudurkan loona baahnaa in iyagu tallaabo qaadaan ma moodaa sida brofesorkuu ku doodaya weli bulshadu dhankeeda inay hawshu ka jiifto horta waa u mahadsan yahay barsoorku hadalka soo u dhigay ma aha dowladdu awaamir way soo rogtay waa sax annagu waxaan ognahay caasimadda iyo guud ahaan gobolada guddoomiyaasha arrimaha bulshada intii loo yeeray inay gobolada iyo caasimadaba kulligood in la amray in bulsho walba degmada ay degan tahay inay wacyigelin ka samayso wacyigelintii marka way socotaa waana la samaynayaa guddoomiyaashii arrimaha bulshada nin walba dadaalkiisii iyo degmadiisii iyo gobolkiisii buu ka howlgelaya hase yeeshee waxa meesha ka maqan tahay muhiim in la tilmaamo dowladdu dadka awaamirta qaadan waaya ma waxaa la dhahayaa waa laga aamusaya ilaan waxaan cudur halisa baa meesha yaalla maraykan iyo ingiriis iyo talyaani oo ognahay adduunka dhan suu u galay waay marka innaga dadka dowladda waxaa laga rabaa amarkii ay samaysay inay horta fuliso dadka bulshada qayb dowladda way la shaqeeyaan qayb way jecel yihiin ani dadka wacyigelinta loo diraan qaarkood aan ku jiro aan ka mid ahaa qaarkood baa waxay ku leeyihin coronaviruskiiba idinkaa noo wadaan idinkaa keenaysaan bay dhahayaan way marka suurtagal ma aha in dowladdu amar intay bixiso ay haddana bulshadii ka dhex muuqan weydo guddoomiyaasha arrimaha bulshada markii la amray inay bulshada wacyigelin loo sameeyo oo suuqyadii iyo waxa weeye goobihii ganacsiga iyo bostoojooyinkii iyo meelihii baabuurta ka baxaysa markii la amro in la tago iyo masaajidadii iyo goobihii guud danta guud oo dhan markii la amro waxaa la rabaa dowladdu inay kormeerto oo taliska boolisku kormeero iyagoon wax caburinayn ma aha barsoorku suu u dhigayo qasab ma aha awood ma jirto ma dhaha dad qaar awood u baahan baa ku jira dad awood in lagu xakameeyo u baahan baa jira dad waxaa jira awood in lagu kala eriyo u baahan marka waxaas waxaa loo baahan yahay dowladdu dadka awaamirteeda qaadanaya waaba dadka loo baahan yahay way laakiin dadkan qaadanaynin waa in awood loo isticmaalo oo awoodi mar walba ay jirto booliskii shaqaynayaan social movementiga waxa la yidhaahdo lama socdaan bataatanba waana amarka guud waxaa la doonayaa dowladdu inay si rasmiya uga howlgasho awood waa loo baahan yahay wacyigelin waa loo baahan yahay tartiib u socod iyo aayar dadka in wax loogu sheego waa loo baahan yahay ninkii qaadan waayana dee waa in qasab awood lagu socodsiiyo oo waxaa weeye bulshadii si fiican loola falgalo wacyigelintoodiina la toosiyo waxaan siinayaa brofesor maxamed
waxaad og tahay dowladda federaalku min gobol ilaa iyo caasimad inay awoodeeda saartay siday xanuunkan covid-19 ama maxaayde fayraskan dilaaga ula dagaalamo waxaad og tahay xarumaha ay ku farabadisay laga furay ee magaalada muqdisho goboladuna ay la mid yihiin odhan maayo anu kaasaa wax qaribay nin kasta waxaa laga rabaa berta uu taagan yahay inuu heegankiisa kasii adkeeyo talooyinka caafimaadka wasaaradda caafimaadka ay soo gudbinaysana inuu kusii dhaqmo dadkuna ay u fahmaan waxa loo ordaya waa noloshooda iyo ka hortaga caafimaadka markaa saaxiibkan waxaan leeyahay dhaliili meesha ma taale ha la wada shaqeeya baan leeyahay hawsha si wanaagsan bay u socotaa anigu sidaan u arko bulshada ayaan canaan saaraya aan leeyahay la shaqeeya shaqada wanaagsan ee dowladda federaalka wasaaradda caafimaadku ay hayso innaga waxaa noo habboon dowladdu markii u horreysay awaamirtii ay soo radaysay qaar badan baan dhaqan gelin wey dugsiyadii qur-aanka oo wasaaraddu amartay in la fasaxo ma ayna dhaqan gelin wey masaajidada in la xiraa la isku dayay ma ayna dhaqan gelin wey in waxaa la isku dayay spaceka ama salaadaha markii la tukanayo sidii awal la ahaa masaajidadii laga kala yareeyo dadkii oo dadka la kala diro ama xiritaanka loogu dadaalo ma ayna dhaqan gelin wey oo sidii baa la iskaga wataa wey marka halista waxaa weeye kusoo wajahan bulshadan aad bay u badan tahay wey suuqa iska dhaf hadalba male isagoo ciiddii hadda ay soo dhowdahay oo nin walba shaati soo gada iyo uu ku jiro kaba soo gada uu ku jiro ayaa waxa weeye suuqiisaa la isu dhex mulaaqaya oo la dhex ordaya wey hase yeeshee awaamirtii shalay aad soo saarteen hadday dhaqan geli weyday waa inaad tallaabooyin kala qaadaan awaamiir kala soo saartaan dhaqan gelintoodii kuwii hore ku dadaashaan kuwa damba soo saartaan si bulshadii ay u noqoto bulsho badqabta iyo wanaageedii iyo horumarkeedii iyo caafimaadkeedii looga wada taxadaro wey haye profesor maxamed anigoo saaxiibkay laba aragtiyood baan u kala wadanaa halka uu ka arka maaha meel kalan ka arkaa waad ogeyd awaamirtii ugu horeysay si qaldan inay dhibaata u dhacday oo ma garanaysaa ay wiil iyo gabadhi ku dhinteen may ahayn wax la weerarayo shacabka ee qadar alle oo dhacay buu ahaa ilaahay samir iiman hanaga siiyo bandoogii la soo rogay halis baa ka dhalatay hab kale loo adeegsado waa la bedelay jadwalkii waxa loo bedelay hab wacyigelina oon ciidan ahayn kana xoog badan oo wasaaradda caafimaadku ay laamo fara badan oo caafimaad ka dirtay sheekhu uu arkaan u malaynayaaye xoogaa uu ka biyadiidsan yahay malaha laakiin waxa weeye wasaaradda caafimaadku laamo badan bay samaysay wacyigelin degmooyinkay dhex gashay meel kastay gashay cid kastay la sheekaysatay cusbitaaladii dhakhaatiirtii meel walba way habayso waxa weeye waxay samaysay xarumo badan marka waxa weeye halkii ciidankii waa la bedelay waxaa loo bedelay wacyigelintaasi shacabka uunbaa la rabaa inay la shaqeeyaan maadaama dalku dal oo burburay oo hadda soo kabanaya uu yahay oo aan iskuna fillayn dhaqaalihiisuna hooseeyo ma qabo in xoog loo adeegsaday habeen iyo maalin wacyigelin baa socota hadday miidiya noqoto iyo hadday noqoto maxay ahaday dadkii caafimaadka oo gudbaya waxaa jirta xarumo loo qaybiyey gaadiidka oo haddii kiisa soo kordhaan isla markaa taleefono la qaybiyey xarumihii waa la badiyey degmooyinkiibaa laga furay cusbitaaladii waa heegan markaas sidaa awgeed huteeladii la yiri raashinka yaan lagu gadin waa la joojiyey oo waa la xidhay oo hadda ma jiraanoo meelaha laguma kulmo maqaaxii la hor fadhiisanayey waa la joojiyey meelaha tukaamooyinka ee lagu gado habeenkii raashinka cayrin iyo lagu kala gato ayaa waxoogaa dadku ka gataan waxa weeye bandoodu way socotaa waana la qafiifiyey dadkuna way qaateen oo sidii hore maaha marka waxaan qabaa inay hawshu si fiican u socoto wax kaloo lagu kordhiyaa ayna jirin wasaaradda caafimaadkuna tallaabadeedu si fiican u socoto bulshaduna inta badan hadda ay ma garanaysaa waxna ay qaateen intaan qaadana waxaanu leenahay wasaaradda caafimaadka la shaqeeya si cudurkani loogu helo aynu uga gudubno oo ilaahayna u barino qof walbana gurigiisa iyo hoygiisa ilaahay ku baryo inuu naga badbaadiyo isagoo iska ilaalinaya meelaha bulshada nuur sheekh cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay maxaa tallaabo loo baahan yahay in la qaado si guud ahaan loo dhaqangeliyo amarada iyo talooyinka la xiriira ka hortaga cudurka covid-19 waxaa weeye halista cudurkan uu leeyahay iyo adduunku sida uga taxadaray iyo innaga bulshadeennu siday u taallay wax isu dhow ma aha waxaan ognahay tusaale haddaan usoo qaadan wadamada deriska ah Mombasa iyo waxa weeye islii oo kiisas yar laga helay oo weliba innaga aan noo dhigmin ayaa bandoo dawladdu kusoo rogtay Kenya waxa weeye bandoogii wax soo gelaya ma jiro carwooyinkii suuqyadii kulli waa la xiray waa kaad ogtiina meediyaha laga wada qayliyo la yiri dawladdu iyada dhaqaalaheedu uu dhacay lacag ay ka qaadan jirtay ayay ku weynaysaa marka innaga kiisaskeenii oo haya iyo tallaabooyin dawladdu ayna qaadaynin inay bulshadii isugu darsamaan macquul ma aha dawladdu waa inay tallaabooyin kala qaado oo awaamirtii xoojiso tallaabooyin adag oo waxa weeye awoodi ku jirto oo waxa weeye xeeladii ku jirto oo nooc walba oo waxa weeye xeelada oo loo isticmaali kara ay ku jirto dawladdu waa inay qaadato anigu saasaan xalka u arkaa xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay
rofeor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo. aadayo mahadsantahay saynab abuukar oo inala socodsiinaysay doodii gaabneyd. markaadna kusoo dhawaada xubinta faaqidaada ciyaaraha. nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. kadib muddo 2 bilood ah oo ay horyaalada kubadda cagta Yurub hakad ugu jireen karantiilka cudurka coronavirus, ayay hadda kooxaha kubadda cagta isu diyaarinayaan dib u bilaabidda horyaalka xilli ciyaareedkan 2019 iyo 2020. 3 ka mid ah 5 horyaal ee ugu xiisaha badan Yurub ayay kooxaha heerka koowaad bilaabeen tababarka. horyaaladaasi ayaa kala ah Bundesliga Jarmalka, Serie A Talyaaniga iyo La Liga Spain. horyaalka Ingiriiska weli kooxaha ma aysan bilaabin tababarka sababo la xiriira dowladda oo aanan weli ogolaan in tababarka ciyaartoyda isboortiga la bilaabo. horyaalka Faransiiska isaga gabi ahaanba waa la soo gabagabeeyey, waxaana koobka la guddoonsiiyey kooxdii hogaaminaysay bishii March markii horyaalka la hakinayay oo ahayd kooxda Paris Saint-Germain. horyaalka Jarmalka waxaa la filayaa in dib loo ambaqaado 16 bishan May. hase ahaatee waxaa laga cabsi qabaa in uu saameeyo go-aanka ay muddo 14 maalin ah ku karantiishay kooxda Dinamo Dresden ee horyaalka labaad dhammaan ciyaartoydeeda kadib markii 2 ka mid ah laacibinteeda laga helay coronavirus. gudoomiyaha horyaalka koowaad ee Jarmalka Christian Sever ayaa u sheegay warbaahinta ZDF ee Jarmalka in tani aysan halis gelin karin dhammaan horyaalka kubadda cagta, maadaama buu yiri la filayay in ciyaartooyda qaar laga heli doono coronavirus. markuu sabtida furmo horyaalka Bundesliga ayaa garoomada lagu ciyaari doono ay noqon doonaan kuwa albaabada u xiran oo aysan daawan doonin taageerayaasha. tirada ugu badan ee loo ogolaan doono ayaa ah 300 oo qof oo isugu jira ciyaartooyda labada dhinac ee dheelaya iyo dadka kale ee ka tirsan kooxaha. ilaa iyo hadda kooxaha heerka koowaad ee Jarmalka waxaa coronavirus laga helay 4 xubnood oo ka kala tirsan naadiyada Cologne iyo Borussia Mönchengladbach. 4tuba waa la karantiilay. dalka Talyaaniga oo ah wadanka ugu dhimashada badnaa kiisaska COVID-19 qaaradda Yurub ayay kooxuhu bilaabeen tababarka si ay ugu diyaar garoobaan dib u bilaabashada ciyaaraha horyaalada kala duwan ee kubadda cagta oo tan iyo 14 March hakad ugu jiray cudurka COVID-19. magaalada Milano oo ah halkii ugu darnayd ee uu saameeyay COVID-19 ayay 2 kooxood ee ka dhisan ee kala ah Inter iyo AC Milan toddobaadkii hore ciyaartoydu bilaabeen tababarka. waxaa ka sii horeeyay kooxaha ka dhisan magaalooyinka dhanka koonfureed ee uu coronavirus ku yaraa sida Roma iyo Lazio. weli go-aan lagama gaarin waqtiga la bilaabi doono, waxaana taasi ka arrinsanaya hadda wasaaradda ciyaaraha, gudiyada isboortiga iyo saraakiisha caafimaadka. laakiin kooxaha qaar ayaa soo wariyey in ciyaartoydoodu laga helay cudursidaha corona. kooxda Sampdoria 4 laacib ayaa qaaday cudurka, halka Fiorentina ay sheegtay in 3 ciyaartooy jirkooda laga helay xanuunka kadib markii ay mareen tijaabada caafimaadka. waxaa hadda cudurka ka soo reystay laacibka kooxda Juventus Paulo Dybala iyo agaasimaha dhinaca isboortiga Milan Paolo Maldini oo cudurka qaaday markii uu ka dilaacay Talyaaniga. dalka Spain oo isna ka mid ah dalalka uu sida daran ugu tuntay coronavirus ayay ciyaartoyda kubadda cagta ee kooxaha heerka koowaad iyo kuwa labaadba tababarka bilaabeen jimcihii aanu ka soo gudubnay. Barcelona ayaa ka mid ah kooxaha tababarka bilaabay, laakiin axadii ayaa 5 ciyaartooy oo ka tirsan kooxaha heerka koowaad laga helay coronavirus. lama magacaabin ciyaartooydaasi kooxaha ay u kala dheelaan, waase la karantiilay. gudoomiyaha horyaalka La Liga ee Spain Javier Tebas waxa uu sheegay maanta in uu rajaynayo in horyaalka dib loo bilaabo 12 bisha Juun. horyaalada bisha soo socota ee Juun dib loo bilaabi doono waxaa ka mid ah horyaalka Super League Turkiga
oo ay kooxuhu tababarka bilaabeen toddobaadkii hore. ilaa iyo hadda kooxaha beshiktash iyo fenerbahaja ayaa soo wariyey in la karantiilay qaar ka mid ah ciyaartooy laga helay cudurka coronavirus. dhegaystayaal, barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan halkaa haynoo joogo. idaacaddii galabnimo waa naga intaas. waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan oo idin la nabadgeliyo.